الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد maanta waxaan nala joogaa Kalkaal Hospital Foundation oo noo waday shaqo mataqaanaa ay si tabaruc ah noogu sameeyeen oo ah mataqaanaa in ay ciyaalka xarunta daryeelka agoonta ay ku sameeyeen Daarul Huda baaris guud ay ku sameeyeen isla markaana ay u sameeyeen talaal dhameystiran ayadoo talaalkaas ama tadciimkaas ay qaateen 96 qof oo reer Daarul Huda ah ayaan ugu mahadcelinaynaa gruubka loo yimid ay hogaaminayo Dr. Haji waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in mar kale ay nagu soo noqon doonaan maanta oo taariikhdu ay tahay 11 bishii afraad 2018 waxa hay'adda qayriga ah ee Kalkaal Hospital Foundation ay bilowday talaaladii ee dhawaantan ay waday ee ugu tala gashay in u faa'iideyso dhammaan agoonta ku jirta magaalada Muqdisho maanta waxaan joognaa xarunta agoonta ee Daarul Huda waxaan shaqo bilownay saakay waxaan screening u sameynay iyo vaccination arday gaaraysa 96 qofood oo muassasada ay ku jiraan waxaan screenkii ka helnay 3 qofood oo positive ah waxaan talaalka guud u sameynay 93 qofood totalka guud maanta aan sameynay alxamdulillah qaybtii koowaad waa dhamaatay qaybta labaad oo talaalka wuxuu bilaaban doonaa bisha 15keeda isla qaybta labaad tan kale waxaan fulin doonaa insha Allah Agoosto waxaan barnaamijkan u talagalnay in uga faa'iideyno dhammaan agoonta Soomaaliyeed ee ku jirta xarun kasto agoon oo magaalada Muqdisho tirada ugu talagalnay inaan gaarsiino waa 10,000 oo arday ah oo agoon ah si ugu badbaado cudurkan dhibka badan oo loo yaqaan hepatitis B alxamdulillah waa qaybtii koowaad oo phase 1 aan u talagalnay phase 2 oo mar dhow ayaan bilaabi doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa meeshan al-ustaad al-Xaaji oo al-Xasan oo aad nagu soo dhaweeyay markaskan aan ka shaqeynaynay ilaa maanta ilaa saakay waxaan rajaynaynaa ustaadiinta kale macallimiinta kale iyo muassasada dhammaan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo aad u mahadcelinaynaa tiimka naga qayb qaatay Torskariye iyo tiimka Kalkaal Hospital Foundation dhammaan macal gabdhaha shaqadii wanaagsan inta laga qabtay waxaan rajaynaynaa midda inay noqoto mid aan dhammaan soo ustaadka sheegay oo qaybaha kale u soo noqono waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan inta naga qayb qaadatay